بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن وناغسن خيارتدا qiimaha badan oo dhageysti daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waa barnaamijkeeni kulanka maanta oo aanu maanta ay noogu martay tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan oo nu ka xog wareysanno arrimo badan oo wasaaradda khuseeya ugu horeyn saacad wasiir waxaad ka warantaa hawlaha ugu dambeeyay ee wasaaradda wax ka qabateen bismillahir rahmaanir rahiim wasaaradda runtii waa wasaarad maalin walba wax ku soo kordhaan oo ilaa laga soo bilaabo wadanka markii la xoreeyay 19 ilaa maanta marba meel soo gaadhisay annaguna halkii aan ugu nimid baanu ka sii qaadnay halkaan ugu nimid waxa weeye meel iskuuladii iyo wax badan ay diyaar yihiin tayeyntii waxbarashada baan markaana ku aadnayno ku culayska weyn saarnay inaynu waxbarashadii tayeyno waxbarashada tayeynteedii waxa soo galay in ardayda waxbarashadoodii la eego in macallimiinta walfeerkoogi la eego in iskuulada dayacoogi la eego in bulshada sidii loogu wacyi gelin lahaa in bulshadii waxbarashada isku xidmaan in waalidku ka war hayo ilmihiisu wuxuu dhiganayo in wax isku wada xiran ay noqdaan baanu anagu ku hawlanayn waxaan u sameynay wasaaraddu waxay iyadu shuruucda waxbarashada iyo siday uu iskugu qiyaasi lahayd meel walba baahida ka jirta iyo sida wax loogu kala qaybinayo ay badanka in ka shaqeysa lacagaha aanu helno badna waxa dawladda noogu soo dartaa badna oo budgetka dawladda ku jirta badna waa bad hay'adaha nala shaqeeya aanu ka helo marka waxaan isku daynay runtii inaanu intaba aanu si ay uga faa'iideysato waxbarashada Soomaaliland aanu uga shaqeyno oo ku fikirna had iyo jeer project kasta oo noola yimaadaan hay'aduhu inaanu naahna ilmaha fasalka fadhiya wuxuu ka faa'iideeyo in la eego haday tahay baabuur iyo haday tahay aqal la dhisay iyo haday tahay buugaag la keenayo bal horta danta ugu jirta ilmaha fasalka ku jira ilaahu haba joogo meesha ugu shishaysa miyiga inaanu taa had iyo jeer ku qiimeeyno waxyaabaha aan wasaaradda waxbarashada ku kordhinayno ama aan u qabanayno taasaano ah sal markay asaas taas u tahay waxa weeyaan had iyo jeer waxaad ka fikiraysaa waxbarashada ilmaha iyo macallinkii wuxuu dhigayay sidoo ugu gudbinayay waxbarashadii meela fiican way noo maraysaa runtii waxbarashada bilaashka ah oo iyadu dhibaatadeeda iska oo wax badan oo daba socday ay weli taagan yihiin oo u baahan yihiin in si fiican looga shaqeeyo waxa weeyaan waxbarashadii ilmuhu way hagaagtay macallinkii meel loo raaco leeyahay mushahan meel uu ka qaato leeyahay xiisadu gooyo meel laga ogyahay leeyahay training-ka uu tababarka uu wato meel loo raaco leeyahay sidoo markii hore ahaa uu ka duwan yahay waa macallin sumadle awalna wuxuu ahaa macallin waxbarashada markii waalidku bixinayay school fees-ka ee macallinka la siinayay waxbarashada wasaaradda waxbarashadana umu xisaabsanay maamulaha maalinba macallinku doona eriyay ku doonana keenayay marka waxbarasho sida wuxuu dhigaan tababarkay wataan qaabka ay wax u gudbiyaan inta cidi umay wasaaraddu may ku shaqo lahayn laakiinse imika 90% macallimiinta wadanka ka dhiga wasaaradda waxbarashada ay mushaharka ka qaataan waana macallimiin sumadle waa macallimiin la og yahay waa macallimiin lagu tabagalo shaqada ay qabtaan waa macallimiin la og yahay tababarkay qaateen waa macallimiin la og yahay waxyaabaha khaladaad ay sameynayaan oo ay lagu daba taagan yahay marka taa alxamdulillah mahad ilaahay baale taawan ku guuleysanay waxa kale oo ku guuleysanay inaanu maadaama waxbarashadii bilaash laga dhigay inaanu sanadkan ku kordhino 400 oo fasal 400 fasal oo imika loo diyaarinayo macallimiintoodii sanadkii hore markaanu 2011kii waxbarashadu waxay budgetkeegu wuxuu ahaan jiray 4% budgetka waxa sanadkii aynu dawladani jirtay 7.9 baa la gaarsiiyay imikana ilaahay waxaan ka baryaynaa in laga kordhiyo si ay noqoto in dawladda Soomaaliland waxbarashada iyo caafimaadka meelaha culayska la saarayo aanu dhaqaale badan ka soo gelin dawladda hadana culays la saarayo taan ku rajo weynahay waxaan kaloo hagaajinay hay'adihiina la shaqeynayay oo iyaguna imika wax ku qabta codsiga ka yimaada wasaaradda waxbarashada halka iyagu meelaha iska tagi la jireen waxay aqligooga ka keenaan ay dhisi jireen meeshay doonaan iskuulka ay ka dhisi jireen waxay doonaan ay ku kordhin jireen imika ilaa wasaaraddu u sheegto baahiyaha jooga wadanka yaala kuma dhaqaaqaan budgetka ay soo helaan isagoo duuduubay halkan la yimaadaan dabeedna halkan aan ku qorsheynaa
markaan halkan ku qorsheynayna inta waxaan uga baahnay waxaan uga baahnay annaguna tii dawladuna siisaan soo dhigaynaa marka wixii marka miiska la wada fadhiyo ee kii dawladana la soo dhigo kii la soo dhigo hay'aduhu ayna siinayeen waxaanu ka dhiganay dad aqal dhisaya adigu imisa musbaar baad haysaa adigu maxaad haysaa adigu albaabad wada daaqad baad wada waa aqalka la wada dhisayo halka guluubku gelayay halka daaqadu gelayay halka uu gelayo musbaarkuba lagu heshiinayo marka shilin meel dhexe ka lumaya ayaa yaraanaya ilaahayna mahadii ilaahay baa mahad ale waan ku guuleysanay imaka in badan inaanu yarayno inay lacag naga daadato ama meel khalad ay naga dhacdo ilaahay mahadii waan ku guuleysanay waxaanu ku guuleysanay inaanu ka helo gacan qabasho badan hay'ado badan waxaanu ku guuleysanay inay dad badan caruurteena u diyaar yihiin in waxbarashadoodii markii la arkay qiimaha ilmaha loo diray Leeshiya ama loo diray Soomaaliland inuu ardaydii kale xitaa ka sareeyay oo ay dhacday oo ay Turkiga imika dhacday in caruur tacliintoodu dhisan tahay noqotay diila badan ayaa gashay caruurta lafteedii inay dadaal badan sameeyaan inaan cidi garab aanay taagnayn markay helayaan scholarshipka oo aan ilmuhu wuxuu keenay uu ku gali karo taasuna caruurta kalsooni badan oo bay ku dhalisay oo dadaal badan sameeyaan oo qof walba isagu aanu adeerna ku tashan abtina ku tashan cid kalena aanu ku tashan iskoorkiisa wuxuu keeno darajada uu keeno uu ku tashado ay arkeen in aanan isdhaafinayn laba arday hadii jeertaan waan ku dadaalaa si ay caruurtu waxbarashadooda kor u soo qaadaan qaababka kala duwan ee bulshada waanu la shaqaynaa cidba baahideeda si gaar ah ayaanu la shaqaynaa haday tahay reeraha la haybsooco iyaga waanu la shaqaynaayo wixii baahiyahooga si gaar ah baanu si ay isku soo gaadhaan oo ardaygu berri laga maarmo ardayna inuu privilege ku helo because qoladiisa ka kalena uu ku helo waxbarashadiisa waayo kan qabiilka lagu leeyahay qabiil ahaan ba wax lagu siinaya haddaanu dadaalino isku haleeyo in had iyo jeer la oranayo waa dadkii la haybsoocayay oo dadaal badan loo sameeyo berri wuxuu ka baxayaa inuu isku arko ilmahan inuu wax u diyaar helayo marka iyada runtiina qola akademiyada la ayaanu kala shaqaynaa oo macallimiina ugu deeqnay inay waxbarashada kor u soo qaadaan dhalinyarada meelaha ku jirta qolada disableka iyagana waanu la shaqaynaa oo wixii ay u baahdaan inta badan iyagana maadaama ay waxaanu waan ku dadaalaa inaan wixii aanu ku tari karno aanu ku tarno marka qorshaha ballaaran reer guuraaga oo iyaguna xaq badan leh oo runtii lafdhabarta wadanka ah iyagana waxbarashadooda in halkooga loogu geeyo ayaanu runtii ku dadaalay waxaanu ku dadaalay in buugaagteena la daabaco in inta badan buugaagta wadanku halkan lagu daabacana waanu runtii ku dadaalo waan jeclaaba inaan qaar koobiyo halkan hadaan ku hayo waayo calankeeni baa ku sawiran waa astaantii Soomaaliland buugii ilmihii Soomaaliland mid loogu talagalay weeyaan runtii taana alxamdulillah madbacad baanu leenahay shaqaysa oo iyana institutionska caawinaya wasaaradda kamida xafiiska imtixaanaadkaanu leenahay isna si fiican u shaqeeya qaybahan kale ee wasaaradda mid walba waxa noogu qoran technical advisors oo dadkeena qurbaha aad wax ugu bartay ee fieldka educationka wax ka qaban kara ayaa loo soo shaqaaleeyay inay caawiyaan waxa kale oo qaadanay dhalinyaro 10 oo iyaguna lagu kaabo dadka waaweyn ee waxbarashada 50 sanadood ka shaqeynaya ee imika daalka badan kulli walow aanay bidaalnayn aad u shaqeeyaan iyo dhalinyaradaasuna isku lamaan yihiin oo departmentska way la shaqeeyaan marka qaybtan hablaha mushkilada badan baa xagga waxbarashada ka haystay oo ama facilities baan jirin waxyaabaha ugu baahnaayeen iskuulka ama macallimiin dumar oo dhiirigelisa ama inan markay reerku noqdaanay lacagtuna yar tahay inan ku ka fuliyeeli jireen taana waxaanu ka sameynay qorshe badan oo inanta hadii lacag loo waayo lagaga bixiyo hadii uniform loo waayo lagaga bixiyo hadii nusu saaci loo waayo lagaga bixiyo hadii iskuulka waxyaabaha dhibaatada ka haystay mas'uulaha iyo waxyaabaha iskuulka ugu baahayeen iyo hablaha macallimiintaba loo tababaro si ay bulshadeenu u noqoto bulsho xitaa haday inantu aanay shaqayn hooyo ay noqoto ilmihiga wixii loo soo dhigay akhri karta eegi karta waxaan inuu yahay wax ilmihan aqligiisa korinaya iyo wax kale waxyaabo buuga ay ka akhri karto buuga waxa macalinku ugu soo dhigo eegi karto ilmihigu halkuu ka maray waxbarashada eegi karta marka intaas aaba ugu liidata hadaanay contribution ka weyn
waddanka kusoo kordhinoonay ama madax ka noqon ama mas-uul ka noqon ama maamulo iskuul ka noqon ama agaasimo wasaaradda aanay ka noqon ilaa hooyada ummaddaa dhan soo ababinaysa inay taqaano ilmaha buugga uu la soo rawaxay waxa ugu yaalla in akhrido waa waxa ugu yaray haweenka loo qaban karo dabeedna taana runtii aad baanu runtii ugu dadaalay inaan wax ka qabano marka imika halkay taagan tahay aad bay u wanaagsan tahay meelaha qaar ba iskuulladu yara dhibaataysan yihiin ama wada xuma haysa anigu imika safarkan aan kasoo galay ilaa loo yacdo aan tegay dee meelo baan arkay siduu gaadhigu ku taga adag tahay runtii oo iskuulladii dumayaan oo u baahan in wax laga soo qabto laakiinse carruurtii iyo ardaydii iyo macallimiintii joogaan mushaharkii gaadhay oo mushaharkii gaarsiino nasiib wanaag ay tahay marka dhulka xeebta oo dhan aynu soo marnay baahiyahoogii iyagana runtii aad baanu usoo eegno usoo helnay imika ugu darayna qorshaha iyaga aan u fadhino mashaariicda muddo imika adigu ilaa sanadii dheeraad baad wasaaradda ka ahayd wasiir waa markii ugu horeysay ee wasaaradana qof dumar ah ay ka noqoto wasiir markii hore xilkan lagu magacaabay dadku waxyaalo badan bay magaranaysaa ay ka hadlayeen laakiinse waxqabadka intaa leeg aad muujisay ma is odhan karta wasaarada kalena ama dumarku ama meel ka sarreeya way gaari karaan alxamdulilah waxa weeyaan ilaahay dee isagaa sameeyey dumarka iyo raggaba dee caqligana muu u kala yarayn physical iyo الرجال قوامون على النساء dee way ka xoog weyn rag iyo dumarku meelaha aanay wax ka qaban oo runtii mararka qaarkood aad arkayso inaanay dumarku geliba karin way jirtaan oo marka dee waxyaabo shaqooyin badan la qabanayo way dumarku way ku adag tahay laakiinse dee marka caqli iyo hooyanimo la eego iyo waxyaabo badan oo dumarku uga runtii ay uga waxyaabo badan bay qaban karaan oo waxa weeyaan dhinac waa ka hooyo oo qof kasta waxay dareemaysaa iyada ilmaheegiyo kale uu yahay macallimiintaasoo dhan aniga marka leemid baa meel ku mushahar la kama seexanayo oo ka warwaraya waxaan duruufaha haystaan dareemaya maskaxdaydu ku sawirmayaayo waa like hooyo uun marka waxyaabo badan dumarku way ku runtii wax badan way qaban karaan runtii sanadkii cusbaa baa la gelayaa oo maalmo quraaba ka harsan ajendayaasha sanadkan ku qorshaysan is leedahay baahiyahaasi waxbaad ka qaban kartaa ee ugu waaweyn maxaa ka mid ah runtii waxyaabo badan baa noo qorshaysan waayo horta sanadba sanad buu daba socdaa sanadkii hore waxyaabihii kaa dhinmo baad ka dambana ku darsanaysaa mar walbana annaka waa tayeynta waxbarashada tan noo muuqata hadday jaamacadaha tahay hadday tacliinta sare tahay iyo hadday hoose tahay jaamacadaha waxaanu u sameynay imika qolo commission for higher education oo iyagu sanadkan cusub laha la jaan qaadaya waayo xafiiskoogii iyo qalabkoogii iyo wixii imikaan isku dhammaynay intii walow aanay shaqo aanay joojinay wadayna shuruucdii diyaarinayeen iyaguna imika weeyaan waxay hawl ay hor la bilaabaan waxaa noo qorshaysan inuu ilmaha malcaamadda ku jira iyo ka jaamacadda ku jira uu tacliintooda wax isku xidhan silsilada ay noqoto aad iyo aad baad mahadsan tahay saacatu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland marwo samsame cabdi aadan oonu waraysi kula yeelanay xafiiskeeda oona arrimo badan ka wareysanay intaasina waxaan ugu dhan barnaamijkeenii kulanka maanta intaan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan ka tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh